محمد عليه الصلاة والسلام iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nabigu yidhi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a nin nooloo soconaya buu nabigu leeyahy ahlu jannah ka mid a dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita maalin dambe ayuu haddana nabigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya isla ninkii unbaa soo galay mar saddexaad ayuu haddana nabigu yihi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya haddana ninkii unbaa soo galay saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya bal raadcee dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo ninkii wuu martigeliyey 3 habeen buu la seexday ninka gurigiisii habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto cishuhu tukadaa wixii ugu tira alla u qoray salaad buu iska tukadaa waa iska seexdaa habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa waa istakfurlaystaa yani waa dikriya nabiguna calayh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka wayse qab ku seexda ee habeenkii markuu soo kaco subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah idhaha allahuma kfir lii ilahay dembigiisa waa dhaafaa markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yar kooban akhrista ilahay dembiga waa ka dhaafaa ninkan intaana waa sameeyaa 3 maalmood markay dhammaatay ayuu wuxuu ku yidhi cabdillaahi bnu camar warniya waxaan rabaa bal inaad ii waranto salaada subax markay soo dhowdana wuu kaca unoo dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulama wuxuu hi niya wax dhibi ma jirin waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato camal weyn oo gaaroo lagugu tilmaamana maan arag ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ahlu janna ah dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataaye wax ii sheeg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi intaa aada aragta mooyaane wax kale ma sameeyo isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu u yeedho wuxuu yidhi laakiin mid aan kuu sheego qof muslima gish iyo khiyaamo kuma sameeyo wax xaasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan cabdillaahi wuxuu yihi hadihi alatii balagat bik wahiya alatii laa nutiiq waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi anana aanu kari weyn in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laabxumo ugu haynin waa masaladan buu leeyahy masalada idan ayuha alaxiba waxaan leenahay ahlu janna wanazacna ma fi suduurihim min gilin ikhwaana calى sururi mutaqaabiliin wanazacna ma fi suduurihim min gil tajri min taxtihim اlanhaar ilahay baa ku ammaanaya taabiciintii waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan haddaba inaad laabfayoobaataa adiga caafimaad qabbay kuu tahy waxaad seexanaysaa adoo miyir qabo caafimaad qabo wax dhibi ku hay adoo ciil qaba haddaad tidhaahda seexana gamiba maysid 9 jeer baad hurdada ka toosaysa iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso warkutaalooyinka iyo wixii dhibku haysatay waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan walidaalika qur-aanka u fiirso ambiyada ilaahay markuu sifeynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mid a inay dad laabtoodu nadiif ahayd yani waa min sifaat alambiyaa haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay id jaa rabahu biqalbin saliim nabi maxamedna anas ibnu malik xadiidku warinaya waa kale man taqama linafsihi weligii ma aargoosan macnaheedu waa maxay madax ciil qabta hadday dad hogaamiso waa la jabaa nin isla aargoosa ama reer ribal xabaal ama kuwa garbi ama siyaasiyiinta intan kale xabaal ama nin ciil qaba hadduu madax noqdo waa laguma guuraan nin laakiin laabtiisu caafimaad qabto dadka inuu kor wado socda hadduu yimaado waxbu